bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta waad salaam markastoo dunida dacaladeeda ka joogtaan waa Cayuush Cabdiqaadir youtube channelka aad daawanaysid waa Cayuush Cooking Pure waxaan rajeynayaa inay caafimaad qabtaan ana sidoo kale marka hore waxaan leeyahay asxaabay soo dhawaada gacmo furna qalbi furan channelkiina waaye maanta waxaan inoo wadaa ceesh aan caadiyeyn ceesh maxshi ay shay aad jeceshahay dhexda ka gelin kartaa sida u sameeyay inta shay aan ka sameeyay insha Allah waa la arki doontiin marka hore waxaan soo shaqshaqay 2 koob bariis u jeedaanba burka inkastoo nadiif uu iska yahay haddana waa iska sii shaqshaqay shaqshaqitaanku waa dhameeyay haddana waxaan ku darsanayaa 2 koob sokor ah caano booro hal qaando oo khamiro wax yar cusbo ah intaana isdhex gelinayaa inta qaleelka markaas dhex geliyo kadib haddana caano ku maqasaayo maadaama aan booro ku daray waxaan ku qasayaa biyo oo qandac ah saa u jeedaanbo koobka aan ku soo cabiray laftirkiisa oo buuxo oo biyo ah hada u sii baahdan oo ku sii darsan doona cajiinka si fiican u qasaya boobsiisna waa saara soo waqtigeeda ku dheeraan darteeda koobka salkiisa oo biyana waa ku soo darsaday saa u jeedaanbo xoogaa wuxuu igu noqday adeeg camal saas darteed marka bakeeriga salkiisa camal sidoo kale 3 qaando saliid ku soo shubtay saliida hadda ku xashaaya isdhex gelinaya si fiican kadib inta isoo hartana koraa kaga daadina si aad u tabaaquliga iyaga qabsan cajiinka oo markaa maxay hato ka soo bixinaya oo noqoto fudeed maasha Allah tabaarkalla saa u jeedaan cajiinka si fiican u soo xashay waqti kulli ma agalisid cajiinka ay shay يعني wax kasto aa sameynaysid oo cajiinba ka kooban kulli ma waqti gelisid kulli ma wax fiican ku soo baxdo maasha Allah tabaarkalla waa soo dhameeyay qaandada kalena koraa ka soo daadiyay daboolkiisa dhab ku siinaya wixii dhexda laga gelin lahaa aan hadda sameysana marka saa u jeedaan meesha waxaan ku haystaa 2 xabo yaanyo ah jubna karafta waa jubnada la hoolaayay sidoo kale toono 1 xabo karooto iyo barbarooniyaal kale intaana soo jarjartay saa u jeedaanbo kabsar caleen wax baaquli yar ku jiro haddana birtaawada dabka soo saartay waa basal yaanyo karootadii aan soo hoolay iyo barbarooniyaasha aan soo jarjaray hal qaando yariis xawaaji kaari ah qaando kale oo ka sii yar oo filfil aswad ah jab yar oo maaji ah wax yar oo saliid ah toonada maadaama ay leedahay dhacaan iyo saliid saas darteeda marka wax cusbana ku daray dhadhankaas ay ugu filan iyo jabkan yar oo maajiga saliid hadii la dhahoona sidoo kale xoogaa yar oo saliid ay wadataa toonada waa ka miiri doona laakiin dheecaankaas ay ugu filan jumnadana sidoo kale saliid ay leedahay saas darteeda marka dhibic aan ku sii saliida hada marka dhadhanka sida u jeceshahay saliid sida u jeceshahay aday kugu xiran tahay aan laakiin sidaan u sameysana dariiqadan insha Allah waxaan rajeyn doonaa inay idin cajibi doonto ama ay ka heli doontiin saa u jeedaanbo xoogaa yar isku soo hooriyay qaleel ay noqotay maasha Allah haddana waxaan ku darayaa toonada saliida xoogaa ka soo miiray qaleelna ma ka soo dhigin dheecaan yar oo leeyahay saa u jeedaanbo haddana dheecaanka ku soo qalajinaya markay qalasho kadib waa la damin doonaa haddana cajiinka dhinaciisa aadina daboolkiisa u dhiibay saa u jeedaanbo wax u dhiman ma lahan taawada waa u jeedina malena qaleel waay haddana waxaan ku darsaday wax yar kabsar caleen aan soo jarjaray wax u dhiman ma laha markaan waa laga daminayaa dabka saa u jeedaanbo qaleel ay noqotay baaquli ku soo diyaarsaday jubnadana waa soo hoolay saa u jeedaanbo diyaar ay tahay cajiinkana wuu qamiiray haddana waxaan bilaabayaa cajiinka habeentiisa xoogaa yar buura meesha kor ku soo daadsaday haddana cajiinka kuuskuusanaya kuuskuus isla eg ah ka dhigaya insha Allah inta xabba ay noqotana waa arki doontiin marka hore salaam calaamadeynaya kadibna gacantiida ku sisimaya midka weyn iyo midka yar qiyaasaha marka gacanta ku sisimay sidoo kale ogaan kartaa midka yar iyo midka weyn saa u jeedaanbo waxay ii noqotay 7 xabo isla eg iyo 1 xabo yariis ah cajiinka gacanta la ku soo fidiyay maadaama oo jilcana cajiinka haddana oo dhaxda wax laga gali rabo qorig lagu fidinayo iyo ma soo qaadanin saas darteeda marka haddana kor waxaan ka saarayaa qudaartii sidoo kale jumnada jeceshahay maxay ku darsan kartaa ama quraaca ka dhigan kartaa ceeshkan ama casha ka dhigan kartaa wuxuu diidaa malahan ku dhahay saa u sameeyeen waa arkaysiin qudaarta markaan jarjarayo maahane inta kale waa idin tusay sameyntiisa aad iyo aad u sahlan tahay cajiinka gacanta la ku riixriixay wax alaal waxa jeceshahay kor ka saaran kadibna dhinacyaha la ka soo qabanay waa isku keenay
saa u jeedaan maasha Allah tabaarakallah. Tartiib le gacantaada le ku sisimee ilaa ay xoogahaadi ay ka balaaranayso balaar intaa rabtid seeska aad jeceshahay. saa u jeedaan hadda midka u horeeyo waaye. baaquli yar waxaa iigu jira subag yar oo aan rabo caraf leh inay ii noqoto iyo xoogaa lamaaco ama dishak qurux ay ii noqoto. saa u jeedaan maasha Allah tabaarakallah. cajiinka kulma cajiinkaada si fiican aa u qastid. saa u jeedaan yacni dhaxdu kasoo maxay ahayd bararaya maasha Allah tabaarakallah. lagama sheekin kara alaabta saraxatan. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad soo tijaabin doontaan oo ciyaalkiina uga faa'iideyn doontaan. cunuga la siiyaan ku dhahay jab ama hal xabo loo dhiibo iyo maxay ahayd koobkiisa caanaha lagama sheekeyn karo. birtaawada kulma inay burka noqoto aad dareentid waxaa u qaadanaysaa mandiil waa ka masaxee burka. xoogaa markuu ku gaduuto aad dareentidna saa u jeedaanbo waxaa soo qaadanay burushka xoogaa yaroo subaga korka marna hadda marka subaga intaana marna ka hor iyo hadda isku mid maano marka hore boorboor ahaa haddana maasha Allah tabaarakallah qurux uu noqday. haddii aad rabtid ceeshkaada inuu sidaan u soo babararo maasha Allah in wax u dhaxad kaga jir xitaa wallahi ma umaleysaan ku dhahay maasha Allah siduu soo babarare. midba mid kasii dambeeyo maasha Allah ka barar og yahay. haddii aad rabtid inuu saan kuu noqdo isla marka aad sas u fidisid oo gacanta aad ku fidisid birtaawada ha kula ordin 5 daqiiqo camal si ilaa 10 daqiiqo camal kadib maxay ahayd birtaawada kusoo dubo maasha Allah sidaan qurux badan oo kugu soo baxaya. subagana wax kale ma kala doonin inuu xoogaa lamaaca ii siiyo ama dhadhalaal ii siiyo darteeda aan subaga u soo mariyay maasha Allah tabaarakallah. sidaan qurux badan oo kusoo baxaya u jeedaan lagama sheekeyn kara alaabtan. haddii aad soo gaartid muuqaalka dhamaadkiisa waa kaaga mahadcelinayaa aad iyo aad u mahadsantahay ku leeyahay waqtigaada. muuqaalka xiga intaa ku kulmi doono waa walaashiin Cayuush Oodale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.